arday fara badan oo wax ka barata dalkaasi Malaysia ayaa waxa soo food saartay xaaladda waxbarasho iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ardayda Soomaaliyeed ay ku sii qulqulayeen dalkaasi Malaysia warkana waxa inoo soo diray waryaheena Ahmed Abukar Ashari. ardayda Soomaaliyeed iyagu wax ka barata jaamacadaha ku yaala wadanka Malaysia ayaa waxa ay ka mid noqdeen sanadihii ugu dambeeyay ardayda ugu tacliinta fiican qaaradda Aasiya gaar ahaan wadanka Malaysia. tirada ardayda Soomaalida ee haatan wax ka barata wadanka Malaysia ayaa waxa lagu qiyaasaa tira ahaan inay kor u dhaafayaan 2,000 oo arday kuwaas oo ku kala fiirsan guud ahaan jaamacadaha ku yaala wadanka Malaysia. Al-Madina International Islamic University oo kamid ah jaamacadaha ku yaala Malaysia ayaa sanadkan ardayda ugu badan ee wax ka barata waxa noqday Soomaali kuwaas oo kala dhigta kuliyadaha kala duwan ay ka kooban tahay jaamacadda waxaana xusid mudan in macallimiin aad u tiro badan oo Soomaaliya ay wax ka dhigaan jaamacadda Al-Madina kuwaas oo marka loo fiiriyo ka badan macallimiinta Soomaalida ee jaamacadaha kale wax ka dhiga. ujeedada ardayda Soomaalida ay ugu bateen jaamacadda Al-Madina ayaa ah in ay bixiso duruus lacag la'aan ah isla markaasina ardaygu uu fursad u heli karo inuu ka dhax shaqeeyo gudaha jaamacadda Al-Madina balse haatan gabi ahaan waxa la joojiyay duruusii lacag la'aanta ahayd taas oo sababtay inay hoos u dhacaan tirada ardayda wax ka barata jaamacadda Al-Madina. Ustaad Cabduqaadir Maxamed Cusmaan oo ku magac dheer Cabduqaadir Boqol oo kamid ah macallimiinta jaamacadda Al-Madina ayaa iiga warbixiyay tirada ardayda iyo waxyaabaha sababay in loo joojiyo duruustii lacag la'aanta ahayd. Mesela arday fara badan oo Soomaaliya dhigata aad iyo fara badan waxa lagu qiyaasaa 100 ilaa 150 xaqiiqdi gabdho iyo wiilal isugu jira aad u dadaala haba ma aragtay gabdhuhuba ma aragtay aad ha u muuqdaaneen waxay aad ugu badan yihiin laba faculty oo facultyga IT-ga iyo facultyga hadda anaga aan joogno oo maamulka dhaqaalaha ama faculty of finance and administrative sciences xaqiiqdiina waa dad aad u qiimo badan oo isku duuban aan isfaquuqin wax wada barta isjecel dadaala mas'uuliyad ay ka muuqato anaguna ma aragtay ka macallimiin ahaan Soomaaliyeed wixii marka adiga tawjiihay loo baahan yahay wixii tabara inkastoo waqtigeena iska yaraan ku dadaalna dhinaca scholarshipka jaamacaddan waxay marka hore caan ku ahayd waxyaalaha scholarship oo waliba waxaan marka koow la asaasay qaabka ay ku bilaabatay waxay ahayd ardada in faasiis fara badan ay heli jireen marka hore maxay yeelay waxa jira niman donors ah oo ma aragtay jaamacadda taageeri jiray dhaqaale fara badan ku bixi jiray marka donorska way badnaayeen ardaduna marka way yaray marka xogaa far badan waxba la fuday jiray laakiin sidoo wixii marka dad isbedeleen oo waxa dhacday in ma aragtay hadda donorskan ay yaraadeen ma aragtay ardadana ay farabateen taasoo dhibaato far badan xaqiiqdi abuuraysa marka xogaa waxa arkaysan marka hadda in arday far badan oo scholarship wax loo soo sheegay marka hore waalid scholarship soo sheegay hadda in ma aragtay dhaqaale far badan wax lagu soo dalacayo oo ardayga marka soo arday wanaagsan oo waalidkii ay aaminsanayeen hadda noqonaysa marka in ardayga waalidkii ay ka shaqeeyaan warnimo sharax aan sheegay scholarship waxa hadda sheegayso lacagta maxay tahay wax lamid ugu dambeyn waxa ii suurta gashay inaan mikrofoonka TV-ga Somali Channel la dhex qaado qaar kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Al-Madina kuwaas oo gabi ahaanba loo diiday inay lacag la'aan ku dhigtaan jaamacadda isla markaasina ay qasab ku noqotay inay iska dhiibaan qarashaadka jaamacadda. ayadan dhan ururkeena wuxuu si gaar xoog u saarayay arin uu ka xaliyo scholarship oo jaamacaddeena haysato sida gaar ahaan 40 ardadeena kamid ah suspend saarna si looga soo ururka aad iyo aad ay wax qabad u sameeyay waxa ka qabanay jiraan oo waxa jirtaba ardada badankeena inay scholarship haysanin semester kan soo tadakhul u sameeyay ani ururkeena SSM wuxuu u sahlay ardadeena inay helaan scholarship. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Suldaan Maxamed Cabdi Balle waxaan kamid ahay ardada jaamacaddan Madina University International oo ku taala dalka Malaysia waxaan maleynayaa jaamacaddan magaceedu yahay well known oo wadamo fara badan laga yaqaan jaamacatul Madina qaybtada labaad oo halkan ku taala ayaan ahay arday kamid ah ardada Soomaaliyeed runtii ardada Soomaaliyeed halkan joogta aad ay u fara badan yihiin oo jaamacaddan dhigata tiro ahaan waxaan dhihi karaa waxay gaareen ilaa mataqaanaa hadaan mirjilad aan qiyaaso ilaa 150 ilaa 140. Ahmed Abukar Ashari telefishinka caalamiga Somali Channel Malaysia.